السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore cid walba meeqaamka ayalkan ku fadhidayaan ku salaamaya waa koobi doona waxa la yidhaahdaa hal libaax arkaysay ma godlato waayo dad iga cilmi badan iga aqoon badan iga waaya aragsan ayaa wajahadayda fadhiya marka af Soomaaligeyguna waa waxa la yidhaahdaa nin xaafadaha iyagiiba lugta kabuubiyotayo buu yidhi war maxaa ku helay suu yidhi jilibka ay wareeray marka af Soomaaligeygu hadduu wareero waydun iga raalli ahaan doontaan intaas waa kaftan mawduuca lay dhibay runtii waxyaabo yar oo kooban baan ka soo diyaariyey waanan sii koobi doonaa maadaama waqtigu muddo 15 daqiiqo inaan ku soo koobo ayaan isku dayi doonaa ummad inay horumar gaadho dhalinyartu doorka ay ku leedahay maxaa se caqabada dhalinyarta hortaagan dhalinyartoo qura maaha ee bulshadoo dhanba maxaa ina wada hortaagan inay ummadi hana qaado amba ay horumar gaadho mawduuca buu ahaa mawduuca lay dhibay da'yarar amba use age waxay yidhaahdeen gaaladu adigu 14 ilaa 15 ilaa 35 da'da inta u dhaxaysa iyay dhalinyar iyagoo yaqaan laakiin waxa professorkuna uu ka dhawaajiyay inan yar oo Soomaaliyeed tayadaynu dadka dheernahay oo 5 jira oo 400 oo neef oo ariya raacday oo intay saa u eegto tiraahdo nayshiina hiblaya maqan nacam tayada dadkeena aynu inagu xaqirayno inaynu dadka ka liidanayno aaminsanahay ta horumarinta u baahan waa ta dadka waaweyn waa iska daayay buu yidhi professorku dhalinyarta in focuska la saaro dhalaanka in focuska la saaro la rabay waa ka saddex waxa la yidhi ummadii caanaha goorma garoor la caanaha goorma subag laga helaa marka ay xasilaan ee ay garooraan ummadina goormay horumar gaadhaa marka ay xasisho iyo la isu geysan karaa maal iyo muruq iyo maskax la isu geysan karaa haddaba saddexda inaan la isu geynin caqabadaha ummadda Soomaaliyeed hortaagan maxay yihiin su'aasha isweydiinta li waa taa kow caqabadaha horumarka hortaagan waxa weey ummadda Soomaaliyeed waxa ku jira way fiican tahay ummadda Soomaaliyeed way wanaagsan tahay tanay tahay laakiin practically marka aynu istayno laalayaalow run aynu isu sheegnay laba nin baa shuura wadasi kolley Facebook aad ugu dhibteen baydun gelin laba nin baa shuura la wada siiyey nin indhala iyo nin indhaqaba shuura la wada siiyey ka indhaha qabay wuxuu ku leexsaday indhooluhu meeluna arkayn raadi nag laakiin waa u uraya wuxuu yidhi waryaa war baa jira sidii maxaa jira sidii war sankaygu hayo ay gacantaydu laada waxaan ka wadaa Soomaali way fiican tahayna waa leeyahay subax walbana waxa la sheegay waraan dhagahaygu ku farxay nacam intermis in qawl ahaan iyo ficil ahaan inaynu is ahaano horta way ka dardaaran ta aan rabo taynu ku dhaqanay inay taa noqoto ta kale waxa jira nacayb iyo godob aanad adigu gelin oo cid kala gashay 700 sano ka hor odaye waxay isweydaarsadeen amba gacan dad ku kala dhexdhacday cid maanta joogtay inay u dhimato nimba waxa la yidhi nin amiin la yidhaabay islaayeen amiin oo ka dhex guuxaya oo amiin cuqdadiisii ku jirto ayuu masaajidka galay waa la tukaday markii salaada laga baxay buu sheekhi ducadii bilaabay ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين تي مساجد كلا يدوب يسوق محمد حسوستي آمين سوري هو يدين وحاكو سمعي وكبح وايس فاني سمعها ومدى الصومالية وحان دوني ياين هالكن يدين كلا دردار مودلين يروي ولا ليالو آمين كيد سلايسين إيا آمين تمساجد كو هاي نوكلا صوعنا هذا واكلا لوا
waxa ay inaga danteenu ku jirno war walaal hal qodob hadaynu isku diidno 9 adna kuudana anna iidana yaynaan iska raacin waa isfaanisan marka gudaheenu it have to be clean takale cidda waxa la yiraahdaa leadership ma hogaamintu waa role wuxuu nin kastaba wax laga tuugi jiray tu uu yaqaanayo tusmu uunku kala leeyahay ee teenana siman nimba waxa la yiraahdaa xatooye heerku ka gaadhay xarigan kaba tolo aha kabaha xariga lagu tolo ayuu nudxada waa 3 nud xarigu 3 nud way oo isku soo han 3 mid xada nacam xatooye nin xarig ka baxsan way ayaa la yiri waxa tahay madaxa maxkamadda iyo cadaaladda iyo garsoorka erga waydi xajaadan afqallo Allah naxariistay 1963 gabaygu tiriyay ee la yiraahdo tabaalaha adduun waxa ku jirta kaba tole maxkamad loo tirshay isagoo tolonka uun jeexa barbuu xabada xariga haduu buuga teelteel u dhiga taasiya male ee in kastaba istiilo waxa taag u hidin weydo ninka kaaga togan uga tagbaantani awoodin halka hebel walaalkayba iga mudan tolkay habaar baa kaga dhacday guulna kuma gaadhaysid ilaa inta aynu qofkii saxda ahaa halkii saxda ahayd waqtigii saxda ahaa aynu la beegsanayno guul sida loo gaadhay runtii way adag tahay ta kale khilaafka iyo isku dhaca oo soo jiitama waxaan xasuustay markaan akhriyay tan odayro Soomaaliland oo kelmadda ila meerayso yaaba jiray waxa jirtay sheekay Soomaali waxa caan ah diin godgal godgoraygal goray godgal goddiingal okay kelmadda waa isdul taagaynaa maanta oo godkan horta yaale ilaan marka khilaaf yimaado waa in dadkii loo gar qaadaa soo diinku naturally wuxuu ku dhalaa god intuu labada lugoodee dambe hog ku qodo ayuu dhalihiisa ku aasa ka bacdi temperature-ka dhulka kulaylka uumibaxa dhulka ayaa ababiya dhalaha diinka gorayadu ilmeheeda arooriday dhigtaayo awoodigu kul bannaan baan ku ogeyn gorayo marka yaa khaldan marka dacwadda yaa hor keena ka wax dulmiya ee gafka geysta ayaa inta badan dacwadda ku horeeya ilaa uu og yahay wax la weydiin doono waa inuu ka sii hordegay wuxuu yiri diin baa god iga cali moogaala gabaygan cali mooga geedi wuxuu yiri diin baa god iga qaaday buu goray ku baanaaye gadcadaadi bay weyday iyo guurtii hawl gale ee godka maalintuu qoday cid baan gorayba weydiin horta intaan gardaba la gelin war goormaad god qodan jirtay oo diin ku haysata nacam keena khaldan hadaynaan qabanin guusha caqabadaha inaga hortaagan bay kamid tahay waan isfahanaan filaya ta kale bulshada qaybaheeda kala duwan maqaal yar waxaan akhriyay Afrika nin la yiri maxay u horumari weeday oo I don't know waxay yiraahdeen Mugabe quotes Afrika maxay u horumari weeday baa la yiri wuxuu yiri ninka Afrikaanki mantuu maal leeyahay uu muruq leeyahay uu maskax leeyahay dalal kale u taga hantiilaheedu wuxuu tagaa buu yiri dibadda aqoon-yahankeedu wuxuu tagaa meel kale marka uu maalkii iyo muruqii iyo maskaxdii dhamaysto dhinto yiraahdaa dalkaygii hooyaha laygu aas waa qabri suu horumari buu waa qabri suu horumari inta aad xoog leedahay ee awood leedahay ee aqoon aad leedahay ayuu dadkaaga iyo diintaada iyo afkaaguba ay ku baahan yihiin ee maalinta aad maaragtay ta kale dadkeena dibadda wax ku soo barta intooda badan oo habaarka igu dhacay bullshit Afrikaano nigula soo noqda ee aan tala keenin amba aqli soo kordhinin amba hooyadu ariga ka ooman yahay aan xal u wadin
inta joogta oo aan isu roonayn maamulka xilka haya oo aan go'aamadii saxda ahaa amba maaragtay awoodeedii iyo kartideedii aan lahayn iyada lafteedu waa gaababka ka mid ah degma la isku laayay practically waxyaabahan arka degmada laba reer baa isku laayay gudoomiyihii baa lagu eedeeyay reerkiina la safatay qiimeyntii markaan u yeedhnay baa qiimeyntii la galay baa la yidhi reerkiina aad raacday gudoomiyihii soo yidhi oo hadda ayaan raaci lahaa khaladku ninkaasi jawaabtu bixiyay waa sax because reality on the ground dhulka ka dhacay buu kuu sheegay laakiin qofka maamulka ah baa loo baahan yahay inuu ka sii digtoonaado oo inuu qofkani ummadda dhexdhexaad u yahay uu labada islaynaya isagu ka mas'uul yahay marka horeba looma sheegin nabigeena maxamed alayhi salaatu wasalaam baxun lama odhane waxa la yidhi iqra bismi rabbika alladhi khalaq qofku xilka iyo waajibaadka ta loo dirayo in la isweydiiyaa muhiim mushaharku waa imisa hawlfulintu intee in leeg bay leegtahay haddaad ka bilowdo guul gaari maysid ta kale ummadda Soomaaliyeed caqabada ku ah waxa weeye dhaga adayg ismaqal la'aan aayadda quraanka waxay ahayd innal insana lirabbihi lakanud ibn aadanku dhaga adayg inuu yahay ilaahay baa noo sheegay isagoo laba qof ayaa la yidhi ibn aadanka wargeedka un ha cunina wax kasta waa idin fasax geedkii bay cuneen Soomaa Itoobiya maanta 120 milyan khalad intee leeg baad markaa ka filanaysa nacam inaad wanaag iska wada filato dadku iska wada fiicnaado adun baa ku daali ma wada fiicnaanaya dadku naturally dhiga adaygu waa wax jira wuxuu carays ciise Soomaaliya dhagala ay dhagaxatii ka adagay taan meel dheer dhowrinay walaalkeed dhiigiis iyo dhexdeeda u dhiiranay this is xaqiiqo cad wey qofku markuu kula joogo waa qof fiican waa wax wanaagsan markaynu sidan u wada hadlayno halkan marka laga bilaabo laga baxo automatically qofku wuxuu noqonayaa qofkii kale ka duwan odayaayim waxay dhahdeen jifadii baan nahay oo saaso ku adeer bakoorada weyn maxaa idinka qariyo jifada waa inta yare oo hooseysay bakoorada qashinka taabata halka gudaafada maxaad inoo geysin baan ku bakooradu meenadi dhamaystir ku qurux badnayn wadartaynu ku qurux badanahay kelida kuma qurux badn marka we have to think inaynu taa ku baraarugsanaa ta kale waad garanaysiin gabaygii timacade allaha u naxariistee dul iyo hoosba waan ugu dhagay waa dhagaxeed dadkan la hadlayaa baan lahayn duxiyo iimaan bal inay dalfoof tahay aqliga dooni laga saaray wixii hore u soo daashaday dihashanaysa hal maalin war isdillay oo isgaraacnay ninna ma tago waan wada joognaa war kullay wada joog haday inoo tahay inagoo isu niyadsan inaan wada joognaa walaalayaal miina ka wanaagsanay nacam option ya maxaa yidhi tu kasta furan ta kale dhaga adayga iyo isdilka iyo maaragtay markaynu inagu isu naxariisan weynay buu yidhi wuxuu yidhi qaasim allah u naxariistee waa waxa abaarna natiijada ka soo baxday isdilkeenii dhaawicii maxaa la yidhi walaala xintamay wayna xoolo yareeyaan wayna xabaalo badiyaan natiijada ka soo baxday haddaba nacaybkaynu ku dhaqanay maxay tahay kow wuxuu yidhi waa waxa abaar nagu salliday soof mareebta socda ceelka waa waxa biyuhu uga socdaaleen biyihii ceelku hoos bay u dudeen samadii daruur laguma oga seerma weydada wuxuu yidhi samadii baa noo cadhootay oo dhulkii baa noo cadhooday oo annagoo gacan ku dhiglayaala isku soo hadhnay labadii daaroodba waan ku khasaarsanahay buu yidhi ilaa labada daaroodba khasaaraha nagaga dhigin ta kale ku soo gabagabaynaya waxa weeye maadaama waqtigu in badan la soo qaatay hawl nacayb Soomaalida hore waxay oran jirtay xagla laaban xoolo kuma yimaadaan generation ka imika joogay hatta thank you waa 8 xaraf saddex buu qoraa TKS I'm telling you the truth
wuxuu lama helo wadaado waxaan cid ku hawshan wax adduunyadana hawl yaraan lagu helay ma jirto wuxuu dhoodan Allah u naxariistee samaatadana kii raadiya ee sabana gaajooda safrad iyo boqol iyo lug iyo suudi iyo guure intaba waa socod samaatadana kii raadiya ee sabana gaajooda safrad iyo boqol iyo lug iyo suudi iyo guure saldha adag waxay ka gasho iyo surin cidhiidhiyoodba marun buu ilaah siinaya uu midigta saara ha yeeshee sansaan bay rabtaa saas markay tahay waa inaad samirkeedii iyo dulqaadkeedii iyo maalkii iyo muruqii iyo maskaxday kaaga baahnayd guusha aad rabto inaad gaadhaad u hurta haddii kale guul ma raadinaysid it's a dream waad riyoonaysaa riyaad ku jirtaa ta kale timacda waxa uu yidhi midigtaadu waxay xoogsataa maydha gaajada marka aanad lahayn looma lulamaanka weliga ee magaabada hashaadaa ka roon maydhanaan kale ninka intanoo fooq leh aniga maalina xabad bariisa yima iibinin intaad leedahay hashaada yar ridaada yar cawsu dhigo oo caana ka maal taadaa ku huran nolosha sidaad u rabto haddaad u weydo waa ku qasban tahay sidaanad jeclin inaad ku noolaato marka waxaa iga dardaarana inaynu inagu isu niyad samaano danteennana ka wada shaqaysano maal iyo muruq iyo xasilooni guushaydu waxay ku jirtaa guushiinuna waxay ku jirtaa aniga ee haddaynu isdillo waxa la yidhi walaalkaa unbaa kaa dhimay oo kugu dhimay markaynu wada nahay weligeen guul gaadhi mayno kollay saacadihii baa sidaas u yaraaday intaasaan doonaya inaan ku koobo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillah ustaadka kusii adkayn mayno waqtiguna waa iska kooban yahay waxaan rabaa inagoo ixtiraamayna dhegaystayaasha ilaalinaynana waqtiga hal qof ah oo hal su'aal ah weydiiya baan rabnaa inaan siin laakiin su'aashaas waa inay noqoto su'aal inteena kale dhan inama teli karta si qurux badan oo kooban oo muhiim ah waan sanaa labiya dhadig waxaan idhaa cadaaladeeyo wiil iyo gabar ka dhig laba hal daqiiqa qaata waayahay waxaan siinaynaa raalli ahaada waxaan rajaynaynaa inaad soo koobtaan wiilkaas iyo gabadha u dambaysa khalaas wiilku waa kee wiilka kor yar istaag dhiman waa la istaaga bismillah magacaygu waa fadxi ustaad wasiir Muxidiin hal su'aal baan weydiin rabay su'aashaasina waxay tahay inta badan jiilashan dambe saddex qof aan ku xidhanahay oo Sheekh Mustafa iyo Aadan Sahan iyo adigaan anu inta badan aad ku dhageystaa marka su'aasheedu waxay tahay deegaankeena markaa joogto dadka wax u gudbiya hadday tahay saxaafadii hadday tahay siyaasiyiin iyo hadday tahay macallimiinba waxaad moodaa qaabka tabintoodu inay aad u liidato adigana waxaan ku aragnaa inaad ka duwan tahay dadka kale deegaanka joogo dhalinyaraduna aad bay kuugu dawan yihiin bal markaa maxaad u samayn weyday fursad ama maxaad jeelka ugu ogolaan weyday fursad aad cilmigaaga ugu gudbiso annagoo ama aad iskugu day weydana jaamacadaha waaweyn ama jigjigiyo koleejada bal cilmigan iyo qaabkan aad wax u gudbinayso inaad tababaro ku siiso hadday tahay saxaafadii iyo hadday tahay bahwadaagta kale ee bulshada ku xidhan tahayba aad baan ku salaamaya maasantahay بسم الله يرستاك بسم الله magacaygu waa Warda Cabdi Gaas waxa salaamaya golaha madaxda iyo sidoo kale Muxidiinba waqtiga kooma dirteed anigoo su'aashayda gudagalaya dadka adiga oo kala ah wax garanaya dhalinyarta ka aqoon badan maxaad xil iskaga saari weydeen in la idin arko madalaha noocan oo kala ah waqti ka duwan dhibaatada ay ummadeenu halkan la gaarsiisan tahay aan waxaan saaraa dadka wax bartay waliba sida loo kala waaweyn yahay maalinta bandhig noocan oo kale ah tiro ayaa la idin arkaa idinku intaad isku timaadaan ee wax meel dhigtaan maxaad noogu soo gudbin laadihiin oo maadsan tahay
بسم الله الرحمن الرحيم أدي أدبا وما هتسنتهين runtii laba su'aalood oo muhiima ayaa la soo jeediyey aad iyo aad baanad ugu mahadsantihiin fursadda aad maaragtay ugu gudbiso anugu hadda ka horna waan maaragtay ballan qaaday mar walba diyaar baan u ahay ummadda inaan wax u qabto mar walba diyaar baan u ahay inaan maaragtay ciddii ay qusayso jaamicadda kolley waan wada hadalay bashiirna waan wada hadalay madaxweynaha jaamicadda jigjiga cabdiruufna waan wada hadalay dhalinyarta qalin jabinaysa in la qabto nooma hirgelin laakiin waan ku tala jirnaa in aanu entrepreneurship shaqo abuur siday u samayn lahaayeen iyo from theory university to the practical university in la soo gelayo dadku way ku jaha wareeraan jaamicadda markaad ku jirto waxa dhacdaa halkaad wax ka cunaysa waa taqaanaa macallinkaaga waa taqaanaa halkaad joogto waa taqaanaa halkaad jiibsanaysa waa taqaanaa casharka lagu dhigay waa taqaanaa macallinkaaga waa taqaanaa intuba waa wax la wada yaqaan laakiin markaad ka soo baxdo jaamicadda aad soo buuggu ma dhiyo qalinku ma dhammaanine jaamicadda la soo galay dayr male macallinkeeda lama yaqaano taad la kulmi lama yaqaano nobody knows halkay ay ku dambaynayso marka jaamicaddan practicalka qofku si uuna ugu dhex hafanin xilka iyo waajibaadka ka saaran inaan fariimo uga gudbino waanu dhalinyarta dhiirigelino taa waan ku tala jirnaa laakiin ma hirgelin intayna hirgelinna nintiisii gabay unbaa tahay oo ayadaan leenahay waana ayadaan qaadanayno insha allahu tacaala waxaanan rajaynaynaa mustaqbalka inaan anigu shakhsiyan maaragtay aan howlahaas horena waan uga shaqayn jiray imankana inaan ka shaqeeyo insha allah diyaar baanu ahay ta kale waqti kooban unbaa laydin arkaa waa runoo xafiiska aan joogay aniga iyo mas-uuliyiinta kale iyo shaqaalaha ila joogaaba runtii xafiis fursad laga heli karo ma ah markaynu xaqiiqatan ka wada hadalno habeen baan sasay anigoo hurda waxaan ku sasay nin bukaana oo sariir jiifa uu nin dhakhtari leeyahay maaliyaddii mushaharkaygii soomay daynino carruurtaydii baa gaajoonay waan iskaga kaa tegaya uu kii jiifay ee bukaanka ahaa leeyahay way keeni doonaan ilaahay baa keeni doonay ha iga tegin naftaan iga baxayse marka saacad hadduu igu daaho mushahar degmo amba hosbitaal laga yaabaa inuu shil gaadhi oo dhacay mushaharka iyo lacagta aniga saxiixeedu igu xidhan yahay ummaddaasi u dhimato automatically I will become a criminal nacam mas-uuliyadda waxaa la moodaa dadku inay ku raaxaystaan oo ay dantooda uun ku qabaanoo ay ilaalinayaan markaad 395 degmo 11 gobol intaasoo xafiis intaasoo caafimaad intaasoo helsupost intaasoo bukaana kharashkoodii inaad sii dayso waqtigiisii saacaddiisa ay kugu xidhan tahay warwar ka weyni ma jiro warwar ka weyni ma jiro nacam dab haddaan idhaa buu yidhi ninkii maad ku guban haddaad taabatid unbaad garan lahay dab mooyaane haddaad afka dab ka tidhaa garan mayse marka qof waxaan nahay nacam aniga iyo mas-uuliyiinta kale ila joogaaba mas-uuliyad intaa leegi dad ay damqayso oy dhibaysa waana intaasoo ka baxsan baan haddana dhalinyarta wax la qabtaa haweenka wax la qabtaa maxabsiyadii hadda ka hor aynu ogeyn falalka ka dhici jiray ciidamada asluubta oo dhan 5 sano u dambeysay baa dadka tababaray ee maaragtay in culimo la geeyo oo hadda dadkii oo hagaagsan soo baxaanoo meel laga warwar qaba ay noqoto lafteedu I have a big role door weyn baan kula nacam ma aha qof dadka cod ka rabo oo intaad soo horjoogsato ha lagu jeclaado amba istusa igama ah nin waliba wuxuu galabsaday buu ilaahiisa la hortegi doonaa laakiin anigu waxaan ballan qaadaya wax ummadda u dan ah inaanan marnaba idinka hagranin taas waa mid aan ballan qaaday hadis kolley intaasaan ku koobi dad badan oo kalena waan ballansanahay gaar ahaan ururada samafalka haweeney la soo hadlayay baa jira dhalinyaro la soo hadlaysay baa jirta marka schedule-ka dawladda imaka bisha sane qorshii baan wadnaa sanad 2016 waa in reportigiisii la xidhaa 2017 waa in qorshihiisii la diyaariyaa
baarlamanka wixii la horgeyn lahaa imakadanay shaqaaluhu xafiiska ku jiraan waa axad waana saacadda waad aragtaan nacam fadhi maaha iskama iman deganaanshahan iyo inuu deegaanku sidan isaga deganaaday ummaddu in aynu sidan usoo wada fadhiisano lafteeda hadda ka hor waad ogeydintii ka tagin marka alxamdulilah dhaliilo badanna way jiraan kuwaana sixitaankooda insha allahu tacaala inagoo isku duuban midnimadeenna iyo wada socodkeenna iyo walaaltinimadeenna wax waliba ku jiraan guushiina guushayda ilaahay fi aakhiraba kuwii guulaysta haynaga yeelo aad iyo aad baa u mahadsantihiin